السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديوان شو waxaa fariin diraya Bilaal Bulshaabi hooyadii iyo walaalihii. Bilaal Bulshaabi sida wada ogtihiin wuxuu ahaa madaxweynaha TikTok-ga. Waxaan lagu xiray shah laga sameeyay calanka Soomaaliya. Waxaana lagu fuliyay xukun aad u adag. Haddaba Bilaal Bulshaabi hooyadii iyo walaalihii oo oonaya ayaa waxay leeyihiin hanala soo daayo wiilkeena maadaama qaladkii uu ka dhacay. Haddaba Bilaal Bulshaabi hooyadii waxay leedahay sidan. anigoo ah Suldaan Maxamed Jamcaale Bilaal Bulshaabi hooyadiis waxaan idinka codsanayaa dowladda barakeyne ee Somaliland waxaan ka codsanayaa in cunugaas ii soo deeyo aniga garabkayga ahay waxaana ku dhalay burburka waqtiga burburka waana yaraankaygi waxaan ka codsanayaa inaad wiilkaas Bilaal Bulshaabi la yiraahdo magaciisa caadigaana ah Cabduqaadir Cali Maxamuud aan ka codsanayaa mudane madaxweyne waxaan ka codsanayaa adigoo ah musabiixi aan ka codsanayaa insha Allah tacaala inaad ii soo deyso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabihi jooga waxaan ka rabaa inaad ii soo deyso agoonnimana ku soo korsho agoonnimana ku soo korsho ka codsanayaa inaad mudane aad ii soo deyso musabiixi madaxweynaha musabiixi adaan ka codsaday waa ka codsada codsiga iga tahay waa ku bariyaa kunya kowjoor waxaan ka rabaa cunugaas inaad ii soo deyso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad ila jeclaato insha Allah tacaala waxaana ka codsaa in si degdeg aad igu soo deyso waxaan ka rabaa cunugaas xorriyadiisa inaad dib igu soo celiso. السلام عليكم مجيء واسمهان علي محمود وبلال بلشاوي ولاجيس waxaa ka codsanayaa madaxweynaha musabiixi inuu noo soo daayo walaalkay Bilaal inuu dib noo soo daayo xorriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problem ku jirna hooyadana wanima noo soo korisay ilaa hadda hooyadeen way iska xanuunsan tahay murugtiisa la jiiftaa anagana sidoo kale walaalkeen waa yaraankeena mana ka marano boliis waa ku baryeena waa codsi waa Bilaal walaalihiisa waxaan ku leenahay madaxweyne mudane waa ku baryeena noo soo daa xorriyadiisa dib noo soo sii waana ku baryeena codsiga naga tahay haddaanaan familka Bilaal Bulshaabi codsiga naga tahay boliis waa ku baryeena ma awoodna qiiradeena maanta waxaa ku saabsanaa weligay kaamir ma soo horistaagin maxaa ugu qasbay walaalkayga oo iga maqan maanta xorriyadiisa ma haysto taleefona kala hadalna xitaa walba xitaa ma haysano mana la hadli karo xaaladdu ku sugan yahay ma sheegi karno waa ku baryeena madaxweyne meesha waxa uu soo fadhiisanay inaan codsi u dalbano ama codsi aan u dirsano dowladda Somaliland qaasatan madaxweynaha waxaan maanta meesha u soo fadhiisanay aan la murugeysanahay aan la tiiraysanahay anigoonan awood u lahayn inaan dib u soo celino awoodda saaxiibkeen marna walaalkeen marna garabkeen oo naga maqan balse aan maanta awood u leenahay inaan codsi u dirsano dowladda barakeysan ee Somaliland maanta waxa meeshan u soo fadhiisanay walaalaheen Somaliland oo walaalkeena maxaa lahaa xorriyadiisa iyaga maanta gacantooda ku jirto waxaan idinka codsanaynaa kun iyo kow jeer inaad maanta xorriyadda walaalkeena aad dib inagu soo celisaan waxaanu nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uuna la soo deyn doonaa maanta rajadeena waxaa rumayn kara ilaahay ka sukow madaxweynaha dalka Somaliland musabiixi waxaan ka codsanaynaa hadduu video ku soo gaaro waxaan nahay dadkooda ka maqan yahay aanan maanta awood u lahayn inay soo deystaan xag awood ama xag maal aanan haysanin laakiinse aan haysano cod aan ku soo gudbisan karno codsigeena iyo rabitaankeena maantana waxaa codsanaynaa anagoo ah Bilaal Bulshaabi familkiisa iyo saaxiibadiisa in xorriyadiisa dibna lagu soo celiyo anigoo ah Armaan Maxamed
ahna bilaal bulshaawi saaxiibkiis aadna ugu barateen mataajiro iyo qosol ayaantana aaweysiin wax kale maahan waxaa ayaanta ugu maqannahay qadka ama social mediaha saataala socotaan walaalkeena bilaal bulshaawi waxaa leeyahay waxaana halkan maanta codsi ugu tirsanayaa ama ugu dhiibanaynaa madaxweynaha muuse biixi ee guuda barakeysan ee somalilan ee walaalaheena ah ee nagu luqadda ah ee nagu diinta ah waxayna ka codsanayaa in saaxiibkeena marna walaalkeena aad xoriyadiisa dib noo siisaan meesha waxaan ku codsanayaa madaxweynaha muuse biixi waxaan ku codsanayaa walaalkay bilaal iyo ii soo daayo codsi biliis firee iyo bulshaawi hooyadana awood lahood ugu soo korisay biliis ii soo daayo waxaan idinka codsanayaa subscribe-ka inaad ii saartaan wax lacag maahan inaad share garaysaan sidoo kale waxaan rajeynayaa ama alla ugu baryaynaa maamadan iyo bilaal bulshaawi walaalihiisa waad aragteen sida u wada-oonayaan ducadooda iyo rajadooda inuu ilaahay u aqbali doono waxaan idin leeyahay caweysin wanaagsan meel waliba aad ku sugan tihiin